السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni saddexaad maanta oo jimcaan idin soo gudbinayno mar kale waxaan idin leenahay jimco wanaagsan. haddaba caawa barnaamijka qodobada aan idinku hayo waxaa ka mid ah cabsidii ka taagneed bariga dhexe oo caawa mar kale soo laabatay, warbaahinta Israa'iil oo sheegaysa saacadaha soo socda in Mareykanku ay go'aansadeen inay weerar ku qaadaan Iiraan. heegan buuxa ayaa la galay. Ingiriiska ayaa diyaarado dagaal wuxuu u diray Qatar si loo ilaaliyo diyaaradihii iyagu isaga kala gooshayay caalamka ee Yurub laga lahaa oo xadiday socdaaladii ay ku tagayeen gobolka bariga dhexe, iyadoo cabsidu ay markaan gaartay heerkii ugu sarreeyay. haddaba tafaasiisha wararkii ugu dambeeyay arrinkaa waan idiin hayaa. sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa Imaaraadka oo la sheegay isticmaalka garoomadii uu ka isticmaali jiray Boosaaso ee diyaaradihiisa xamuulka uu markaa hubka ku qaadi jiray ay u wareejiyay Israa'iil iyo Ethiopia. haddaba maxaa ka jira wararkaas? warbaahintu waxay ka qoreen iyana waan idiin hayaa. waxaa sidoo kale barnaamijka aan idinkugu soo gudbin doonaa ra-iisul wasaaraha Ciraaq oo fariin la yaab leh u diray madaxda Yurub. qodobadaas ayaynu barnaamijkeena ku faahfaahinaynaa caawa. waa habeennimo jimcaha oo sabti soo galayo, taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 23 bisha Janaayo sanadka 2006. haddaba waa barnaamijkii saddexaad maanta oo jimcahan idiin soo gudbinayno. caawa barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa xiisada cusub oo colaadeed ayaa mar kale laga soo sheegayaa gobolka bariga dhexe. warbaahintu waxay leedahay cabsidu waxay gaartay heerkii ugu sarreeyay, waxaana lasoo helay xogo ku saabsan in Mareykanku ay go'aan ku gaareen inay weeraraan Iiraan oo iyaduna heegan buuxa ku jirta, Israa'iil oo iyaduna heeganka aanba ka bixin muddo 2 toddobaad. haddaba xaalku waa sidee, maxaase soo kordhay oo caawa cabsida keenay? haddaba aan idin tuso wakaaladda wararka ee Turkiga caawa waxay leedahay warbaahinta Israa'iil ayaa waxay caawa ku celcelinayaan cabsi weyn inay jirto oo ku saabsan weerar markaa lagu qaadi doono culus ee Mareykanka uu ku qaadi doono Iiraan. haddaba kanaalka la yiraahdo 12 ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaa xogo uu soo helay caawa waxa uu xaqiijinayaa in markaa xaaladdu ay tahay mid aad u adag. Iiraan iyo Mareykankana ay isfarasaari doonaan saacado kooban kadib, iyadoo la ogaaday xogo sheegaya in markaa la go'aamiyay weerar in lagu qaado Iiraan. warbaahinta Israa'iil ayaa masdarka koobaad ah meesha wararka cabsida ah ay ka soo baxayaan. haddaba waxaa arrinkan haddana cirka ku sii shareeray. wararka qaar waxay sheegayaan in diyaaradihii isaga kala gooshayay oo rakaabka waday la xadiday socdaaladoodii ay ku tagayeen meelo kala duwan oo bariga dhexe ka tirsan. taas iyaduna cabsida ayay sii kordhisay ayaa la leeyahay. waxaa cabsida sii siyaadiyey saacada ka hor Ingiriiska ayaa la sheegay inay diyaarado u direen kuwa dagaalka ah Qatar, maadaama la sheegay Ingiriiska iyo Qatar inuu ka dhaxeeyo heshiis isdifaacida. haddaba cabsi ayay ka qabtaa Qatar in Iiraan marka la weeraro iyaduna ay soo weerari doonto Qatar saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay halkaas. haddaba Ingiriiska ayaa sheegay inay halkaa u direen diyaaradahooda ugu casrisan caalamka ee dhinaca dagaalka, waxayna sheegeen ujeedada halkaa loo geynayo inay tahay inay difaacaan dalka yar ee Qatar. haddaba marka aan idin tuso telefishinka CNN qaybtiisa af carabiga ayaa qortay caawa warbixin ay leedahay wasaaradda difaaca ee Britain ayaa sheegtay inay u dirayaan diyaaradahooda halista badan ee dagaalka saldhigyo ku yaala Qatar. halkaa ayay joogi doonaan maadaama xaaladdu ay markaa faraha kasii baxayso gobolka bariga dhexe. waxaana ay sheegeen in markaasi la diri doono diyaaradaha dagaalka ee Ingiriiska. haddaba waxaa la sheegay in ujeedada Ingiriiska uu halkaa u geynayo diyaaradihiisa khatarta ee la yiraahdo Typhoon
ay tahay inay difaacaan dalkaas ku yaala khaliijka oo markaa la sheegayo in ay cabsi kasoo food saartay xiisada colaadeed ee hadda taagan. marka diyaaradii waaba tageen hadda wararka qaar aan arkayaa inay gaareen Qatar diyaaradihii Ingiriiska. marka xaalku marka halkaas uu marayaa caawa wararkaas ayaa soo kordhay kollay waxa arki doonaa. marka awalba waan idin sheegay aniga barnaamijyadeeda hore waa la socoteen in dadka qaar falaqeeyaashu ay yiraahdeen Trump waxaa ka go'an inuu Iiraan weeraro, dowladda halkaa jirta rido, shaahi geeyo meesha wiilkii uu dhalay boqorkii markii hore xilka laga qaaday, kadibna shidaalka iyo Iiraan waxa ay leedahay iyo uu gacanta ku dhigo. ninkan adduunyada dhan waa la wareegaya meelay la gaartaba wuxuu rabaa dal kasta inuu Venezuela shidaalkii la wareegay halkanna inuu gacanta ku dhigo. khaliijkan awru iska haystay wixii oo dhan saas inuu u qabsado rabaa. cid ka daba hadli kartaba inay meesha ka soo baxdo mar raba la leeyahay. marka markabkii uu sugayna waa gaaraa la leeyahay bariga dhexe, markab uu Shiinaha ka keenayo diyaaradaha xambaara USS Abraham Lincoln meelada. marka markabkaas isaguna waa tagaa leeyahay saacadihii la soo dhaafay. haddaba marka cabsidu heerkaas ayay maraysaa, xaalkuna halkaas ayuu taagan yahay. wixii soo kordha barnaamijyada dambaan idinkula socodsiin doonaa. haddii weerar dhacana haddii alla idmo warar cusub oo degdeg ah ayaan soo gelin doonaa haddiiba alla idmo. waa ka gudbaynaa qodobkaas. waxaan sidoo kale u gudbaynaa warbixino kale. waxaa la xaqiijinayaa in imaaraadku uu u isticmaali jiray garoon diyaaradeed oo ku yaala Boosaaso dalka Soomaaliya diyaarado military oo hub wada oo uu markaa ku saacidi jiray kooxda Suudaaniyiinta uu taageero ee la yiraahdo Dacmo Sariic. haddaba maadaama dowladda Soomaaliya ay iska hor yimaadeen cabsina uu ka qabo Sacuudiga iyo dowlado kale inay arrinkan ay markaa qatar ku keenaan, ayaa wuxuu la heshiiyaa la yiri Israa'iil iyo Ethiopia. waxaana la sheegay diyaaradihii hubka waday inay Israa'iil tagayaan kadibna saldhig military oo ciidanka cirka Ethiopia ay leeyihiin ay ku dagayaan kadibna halka ay Suudaan markaa uga gudbayaan. haddaba arrinkan weli kama hadlin dowladaha Ethiopia iyo Israa'iil, laakiin haddii Ethiopiaanku falkaa sameeyaan waxaa la sheegayaa in iyana khatar ay halkaa kala kulmi karaan. haddaba xiisadan iyo wixii laga qoray wararkii ugu dambeeyay haddaan idin la wadaago. telefishinka Yurub ay leedahay ee la yiraahdo Euronews ayaa wuxuu sheegay rixladihii ama safaradii dhinaca xamuulka imaaraadka militariga ahaa inay u wareejiyeen dhanka Israa'iil ilaa Ethiopia oo markaa arrinta Suudaan ku saabsan kaalmadii ay siinayeen kooxaha Suudaaniyiinta ee ay taageeraan. haddaba warbixinta way sii socotay. waxaa la sheegayaa dhaqdhaqaaqyada iyo ka warqabka gobolka ee ciidanka Saudi Arabia iyo ciidamada kale ee Masaarida ayaa waxay keeneen in imaaraadku uu joojiyo isticmaalka saldhig uu ku lahaa deegaanka la yiraahdo Boosaaso oo ku yaala waqooyiga Soomaaliya sida ay sheegayso jariiradan la yiraahdo Euronews. waxaana la sheegay istiraatiijiyadda hawshan inuu u wareejiyay dhanka iyo saldhig uu markaa ciidamada Ethiopia ay ku leeyihiin ay leeyihiin. kan markaa halkaas uu maraya oo diyaaradihii ayaa waxaa la leeyahay hawshaas ay ku guda jiraan diyaaradihii xamuulka ahaa. waliba fiidiyoyo ayaa laga keenay arrinkan ku saabsan oo markaa la leeyahay arrinkan khatar kale ayuu gobolka ku keenaya. imaaraad ma ka dhamaanayo gobolkan xagga haddii laga soo xiro halkaanuu jabsanaya dhiban caadiya ba ah. haddaba marka aan aragno marka wixii iyadana sheekadan kasoo kordha iyo xaalka sida uu noqdo. qadar xayisiisa kadib waxaan u gudbaynaa ra'iisul wasaaraha Ciraaq oo hadal la yaab leh kula hadlay maruu telefoonka kula hadlay madaxda Yurub ugu waaweyn. haddaba muxuu sheegay ra'iisul wasaaraha Ciraaq? sheekadan xiisaha leh ayaynu qaybta dambe ku faahfaahinayna daawanaysaan. kusoo dhawaada barnaamijkeena habeennimo. haddaba caawa barnaamijka waxaynu maraynaa qaybihiisii ugu dambeeyay, waana barnaamijkeenii saddexaad habeennimo jimco ah
oo markaa sabti soo galayo haddaba qaybtan waxaynu kaga hadlaynaa ra-iisul wasaaraha ciraaq ayaa af labadii qayliyey maanta waa xanaaqay taleefonuu qabsaday wuxuu wacay madaxweynaha faransiiska waxaa la yidhi sheekada meesha warbaahinta ka hadlayaan maalin hore maraykanka maxaabiis tiro badan oo daacisha ayuu inta soo kaxeeyey uu ciraaq kusoo daadiyey ciraaqaa marka qabatay ciraaq uu keenay suuriya wuu kala soo cararay oo dagaalkii wixii markii ay dhaceen maxaabiistii markii la diiwaan gelinayay oo la qorayay adiga xaggee ka timid france adiga xaggee ka timid hebel adiga war marka la 90% yurub ay ka yimaadeen asal ahaan carab ha ahaadeen wax kale ahaadeen afghanistan ha ahaado wuxuu rabaa ahaado laakiin dad yurub ka yimid waaye oo dhalasho yurubiyana haysta ayaa daacishtan ah markii loo sheegay marka ra-iisul wasaarihii ciraaq furkuu tuuray aan tusoo telefishinka alcarabiya ayaa sheeko la yaab leh qoray wuxuu leeyahay ra-iisul wasaaraha ciraaq wuxuu ugu baaqay yurub inay la wareegaan oo ay qaataan muwaadiniintooda daacishka ah ee xabsiyada loo soo wareejiyay ciraaq ninka xudhuuryaa dhegaysta naga qaato waxaa kulligood wadamadiina ka yimaadeen annagaan ugu halaagaysaan marka waxaan nimanka yurubiyanaa nahay ku haya oo dhalasho yurubiyan haystaa maxay tahay waxaan u dhahay annaka aan intay xaggee geenaynaa annaga marka nala kusoo daadinayo qashin qub maa nahay ninkii ciraaqiga caawa furkoo tuurtay laba hayo ilaa hadda akhbaar dhinaca yurub ka timid laakiin telefoonka macron ayuu ugu sheegay madaxweynaha faransiiska qodobkaas ayaa ugu dambeeyey barnaamijkeena caawa akhyaaray fakarkiina iyo aragtidiina balka dhiibta xaaladdu halka ay ku dambayn doonto gobolka bariga dhexe oo caawa saas u karkaraya haddaba waa arkaynaa wixii soo kordha inta aan mar kale kulmayno like gareey oo share gareey barnaamijka haddaad cusubtaan subscribe-ka ka iloobin amadgeliyo